Gabadhan oo lagu magacaabo Samira Naasir ayaa loo magacaabay taliyaha saldhigga degmada Shibis ee gobolka Banaadir. Ma ahan gabadhii ugu horreysay ee taliya saldhig noqota, balse arrinta xiisaha u yeelaysa sheekadan ayaa ah inay qarka u saaran tahay in rag badani isku dagaalaan, iyadoo sababtu tahay joogga iyo jamaalka Alle ugu deeqay. Qofkii dacwo ii qabo saldhigga Shibis ha iga dacweeyo isla caawa. Hadda laga bilaabo dambiile ayaan ahay, kaale xirtaliye. Dambiile weyn ayaan ahay. Guri kiro ah Shibis ha la iiga raadiyo asxaabey. Shibis guri ma ka bannaan yahay? Amaan cayaal weerada Shibis ku biiraha isoo qabato quruxleydiye. Saacan waxaan ahay dambiile, waxaana deganahay degmada Shibis. Reer tolkayow haddaad i weysaan yaan la iga murgin oo la i raadinin, saldhiggaas ayaan ku xiranahay, yaana la isoo dayn. Talisada habeen walba ha xirto, waxna uma haysto. Saldhigga u sii socdaa ee xilka ma loo magacaabay qofta. Taliya kaale xir dambiile ayaan ahay. Waa qaar ka mid ah rag faalle ka bixiyay magacaabista gabadhan.